wafdi ballaaran oo ay hogaaminayeen musharax Mustafa Cismaan Magaalo iyo musharax Cabdiraxmaan Maxamuud Xasan oo ka kooban cuqaal odayaal dhalinyaro iyo aqoon-yahano isku deegaan ahaa ayaa waxay socdaal dheer ku kala bixiyeen deegaano hoos yimaada gobolada Togdheer iyo Saaxil. socdaalkan oo nuxurkiisu daarnaa wacyigelin iyo isbarasho ayay musharaxiinta golayaasha deegaanka iyo baarlamaanku ka sameeyeen deegaano kala duwan oo ay dadkoodu yaaleen, waxaana uu qaatay socdaalkani 6 caanamaal oo ay marayeen ku dhawaad 25 tuulo oo ku kala yaalay gubanka, oogada iyo hawdka, waxaana deegaanadaasi ka mid ahaa Hayeeti, Xidhxidh, Burcakibir, Laastabaan, Dhuumood, Bahalaley, Dhibiijo, Dindinta, Boorley, Kalbarre, Balixaga, Balliwarsame, Labiguun, Balihiile, Iskudhoon, Xangeyada iyo Waraabeeye oo iyadu noqotay degmadii lagu soo khatimay socdaalkan oo loogu magac daray Bannaan iyo Buur. dadweynaha deegaanadaas ayaa wafdiga murashaxiinta ku soo dhaweeyay farxad, qalbi furnaan iyo caleemo qoyan, iyagoo uga mahad celiyay fariinta wacyigelinta ay soo gaarsiiyeen una ballan qaaday inay isdiiwaan gelin doonaan isla markaasina ay barbar istaagi doonaan. Chief Caaqil Sugaal Cabdullaahi Cajab iyo gudoomiyaha guddida beesha labada musharax soo xushay ee Cabdulla Cabdulle iyo waliba odayaal kale oo ka mid ah guddida oo halkaasi ka hadlay ayaa waxay dadweynaha deegaanadaasi uga digeen khalkhalgelin lagu wado midnimada iyo go'aanka beesha, waxayna sheegeen in reerku labada murashax u soo xushay golayaasha deegaanka iyo wakiilada cid kale oo u sharaxana aanay jirin, isla markaana ay iska ilaaliyaan oo meel uga soo wada jeestaan ciddii khalkhalgelinaysa isku duubnida beesha. sidoo kalena waxay ammaaneen murashaxiinta oo ay ku tilmaameen aqoon-yahano wax badan ku soo kordhin doona qaranka, isla markaana magac u soo jeedi doona reerka iyo guud ahaan Somaliland. xildhibaanadii aynu dooran jiray rag qurba soo maray baahano ninkuna hadduu qurba soo maro kolley dhulkan u soo maray, laakiin kuwani waddankay ku dhasheen kuna barbaareen waxna ku barteen waddanka kamay tegin oo way ka duwan yihiin. waxaa kaloo jiray rag dhallinyaro handambele baa la socda sidaa deegaankii wada wacyi gashada haddii ilaahay yidhaahdo idinna codkiinna cabashadiinnala sheegta. cabashadiinna xigaalka waa loo sheegaa mar kastoo aa warbaahin heshaan iyo mar kastuu idin yimaado, laakiin codka wuxuu u leeyahay xaq, abtirsiin buu u leeyahay. waxaa haddii ilaahay yidhaahdo aynu yeelaynaa, haddaan noolahay ka hadhi maayo anigu labadaa hordhacna waxaan leeyahay war meeshii wax ka qabta, war hooy aynu gallo wuxuu ka sii qabsada. reer Cabdalle barya wax kale deedin meel waxaan leeyahay war reer Cabdalle barya qubriba joogiyo iyo qolqol joogba barya naca labaydu kuma yaal dhaha nagu taageera war inaa magaaladii nagala samaysaan waaragta. waftiga nala socda iyo odayaasha iyo cuqaashan oo ku socnaa halkan marayno waxa qastibaan meesha ku jira. qastiga ugu weyn ku jira waxa weeyaan in dadku isdiiwaan geliyo diiwaangelin baa soo socota. waxa lagu dagaalamaa marxabada mar walba waxba lagu dagaalamaa. imika waxa lagu dagaalamaya waa codkiina qaata dhalinyaro waayeel kulligiin waxaan rajaynaynaa inaad codka ku dagaalantaan iyadoo aan idiin wadno xildhibaanadii golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka. ujeeddada aan u soconay waa intaa la sheegay kaliya waxa weeye in kaarka la qaato oo la isku wacyigeliyo sidii kaarka loo qaadan lahaa ciddii markii hore ka habsaantay iyo ciddii qaan gaadhay intaa muddo dheer baa dee ka sokaysay inta qaan gaadhay in la qoro dhinac loo liisteeyo inta aan haleelin waqti u yeelanin nasiib u yeelan berigii horena gaar loo liisteeyo inta haysatee qaadatayna haruu haysatayna la liisteeyo inta ka luntay ee weydayba waqti baa ka soo wareego dad badan baan garanayn meel ay kaga warramaan kaarkoodii hore inta uu ka lumayna ay gaar iyaguna isu liisteeyaan. maanta hubka kaliya ee la soo adeegsanaya ee wax lagu qabsan karayaa waa marka wax la soo baxdayo codkaaga adigu aad cod yeelataad cid dooran karto adna markaas ma lagu dooranaya aad soo qaata kaarka. marka waa kaar qaadasho imika horta ugu muhiimsani kaarka aynu qaadanno.
sida odayaasha horeba sheegeen waxa loo socday oo aan u soconay wacyigelinta u diyaargarowga diiwaangelinta markaa waxa weeye waa intaa laga tamariyo la isdiiwaangeliyo waxaannu doonaynaa oo aannu idinku nimi maanta inaad kaadhka qaadataan oo ay isdiiwaangelisaan qof kasta oo aan kaadh qaataa dee waxbuu tarayaa maalinta magaranaysaa codbixinta laakiin qofku haddaanu waxba qaadanin waxa weeye halkana wax ka tari maayo meelkana wax ka tari maayo isaguna cidna wax u tari maayo marka waxtarka layska doonayaa waxa weeye in la qaato codbixinta kaadhkeeda la qaato oo maanta kaadhka loo diyaargaroobo meesha kaadhka aynu ka qaadanaynaa waxa weeye ee aynu inagu u soconno haddii aynu nahay beesha cabdulle ee uu inaga anfacaya waa gobolka saaxile aynu ka sharaxannahay musharax mustafe cismaan magaalo oo u sharaxan golaha deegaanka degmada Berbera iyo murashax Cabdiraxmaan Maxamuud Xasan oo u sharaxan golaha baarlamaanka Soomaaliland ee gobolka Saaxil ayaa iyaguna dhankooda ka mahad celiyay soo dhaweynta iyo sooriyeynta loogu sameeyay deegaanada ay marayeen waxayna ka hadleen ujeedka socdaalkooda iyagoo bulshada u faahfaahiyay qaabka isdiiwaangelinta iyo wareegyada ay ka kooban tahay waan idinka mahad celinaynaa sida fiican qiimaha badan iyo qaayaha badan ee noo soo dhaweyseen waxa kaliya aan idin sheegaynaa waa inaan laba ujeedo baan halkan u nimid waa inaan isbarano oo isaragno oo deegaankeygii iyo dadkeygii aanu soo barano qodobka kalena wuxuu ahaa inaan fariinta wacyigelinta inaad kaadhadhka qaadataan aan idin soo gudbino maadaama idinku ayadaan inta badan ku xidhnayn waxyaabaha muuqaalada ah iyo tiifiyada ee la iska arko ee inta badan wacyigelintu ka socoto si aan qof idinku soo gudbino fariintaasoo kaliya ayaan idiin sidnaa maanta horumarka deegaankani wuxuu ku xidhan yahay sida ay dadka deegaankani u qaataan kaadhka dadka deegaankan la keeno oo iska diiwaan gelinaya laftarkeeda sida ay u soo dhaweeyaan dadka laftarkeeda halkan la keenaya ee iska diiwaan gelin doona waa dad deegaanka ka tirsan oo deegaanka idinla soo degi doona oo deegaanka ah sidaas darteed magaalada Baxalaley waxay noqon doontaa magaalada la isugu wada iman doono sidan u dayacnaan mayso iyadoo sanduuq magaalada kaliya ee sanduuq leh ee aynu leenahay ay tahay sidan u dayacmi mayso una dayacnaan mayso haddii Ilaahay ka dhigo waxaanaan iminka u soconay intaasoo kaliya ololanaga may ahayn xisbiyadii iyo ololihii doorashadana lama gaadhin kelmadda kaliya idinku nimi waa inaan idin sheegno dumaro waliba aan gaar idinku sheegno dumarku kaadhadhka ma qaataan oo inta badan isma diiwaan geliyaan oo xoolaha iyo guriga ayaa lagaga tagaayo loo diraa dumarow kaalintiina qaata oo marka aad idinka guriga la idinkaga tago gelinka hore gelinka dambe isa soo diiwaan geliyo oo codaynta iyo kayuuga gala oo qof qaangaad ah oo 15 jir gaadhay oo deegaanka jooga oo aan isdiiwaan gelinayna aan arkin waxay ku xidhan tahay horumarkeena waxay ku xidhan tahay deegaankan baa wax ku helaya annaguna waxaan ballan qaadaynaa sida aad noogu hagar baxdaan inaan idinku hagar bixi doono oo aan idinku shaqayn doono sida aad u tiraahdaan noogu shaqeeyaan idinku shaqayn doona haddii Ilaahay ka dhigo haddii aynu guuleysano oo Ilaahay nala maago waxaan filayaa kolley muddo dheer baa taagnaydeen maanta bacadka waana idinka mahad celinaynaa arrintaa iyada ah sababtoo ah waxaannu soo maraynay deegaanno kala duwan oo kala durdurugsan idinkuna waxaa ahaydeen deegaankii ugu dambeeyey ee socodaalkayaga maanta uu ku jihaysnaa ujeeddadayaduna ma ahayn dalxiis iyo inaannu idiin soo tamashla tagnay balse waxay ahayd wax inoo wada muhiima oo idinkana idiin muhiima annagana noo muhiima inaynu isgaadhsiinno arrintaas oo ah arrinta wacyigelinta diiwaangelinta waxaan aad mar labaad idinka mahad celinayaa sida halkan ka muuqata inaa aad u wacyigashan tihiin oo aad kala garanaysaan kiinnii kaadhka qaatay iyo kiina aan qaadanin hadduu qaangaadh yahay iyo haddii aanu ahaynba waa runtii waxaad dheer tihiin deegaamada kale mar haddiiba aad taqaaniin dadkiinna aan diiwaan gashanayn arrintaa kaadhka ahi waa tu idin anfacda annagana na anfacda waa tu idin anfacda oo waxay idiin anfacdaa waa ta aad ku kala saari kartaan qofka aad doonaysaan inaad masiirkiinna u dhiibataan iyo qofka aad u diidan tihiin inaad masiirkiinna u dhiibataan waa arrinta kala saaraysa ee kala duwaysa kaad jeceshahay
ee aad u aamintay masiirkaaga inuu kuu matelo iyo ka aanad u aaminin markay caynkaa tahay waa awood laakiin bulshada badideedu ma daraansana awooddaa inay leedahay waxaannu laakiin idinku wacyigelinaynaa inaa ogaataan muhiimadda iyo awoodda ay leedahay arrintan iyada ahi haddii ilaahay nafta inoo daayo waxaa inaga xiga iminka 4 cisho oo keliya 4 cisho kadib waa loo dareerayaa arrintaa waana la isdiiwaan gelinayaa dadkiina ay iminka sheegteenna haddii ilaahay idmo way idin diyaarin wixii kale ee weliba idinka durdurugsanna way idin isgaadhsiin socdaalkan oo qaatay 6 caanamaal ayaa ku soo beegmaya waqti maalmo kooban ay ka harsan yihiin diiwaangelintii oo si rasmi ah 13 bishan December uga bilaabmaysa gobolada Saaxil iyo qayb ka mid ah gobolka Maroodijeex waa Maxamed Cabdi Cabdilaahi Maxamed Andar